waxaa liigu soo eedeeyey inaan dilay xaaskayga taasoo ah been abuur waxnana aysan ka jirin. annaga dad muslina ilaahay naga dhigay, waxa ugu weyn wax lagu xukumana waa shareecada islaamka. aniga maanta horta wax liigu xukumo oo maanta dembi aan geystay ma jira ayaan leeyahay, balse waxaan qabaa in arinteeda loo bandhigo shareecada islaamka maadaama qof muslim ahay, xaaskaygana muslimada ay ahayd, eheladeennana ay yihiin labada ehelba muslimiin. shareecada islaamkana markasta qof gooniya uma hiiliso, keliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ayay wax u jirtaa. taa markii laga soo tago, xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu igu soo eedeeyey in aan dilay xaaskayga shidaal aan ku bilbilay. horta taa waa maxay ahayd waa mala awaal, waayo hadalka markuu leeyahay goobjoog moose ahayn, maxay ahayd wax CC camera oo ka arkay ma aha, keliya qiyaastiisa iyo maxay ahayd halkubeegiisa unbaa sidaa noqday. qofka muslina ee shareecada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo, dilna loogu xukumo, laguna dilo, dabcan mudan garsoore adiga iga yaqaan wax fiican inaysa ahayn. maxkamaddii horena waxaa liigu xukumay dil toogasho ah ayadoo aan lahaynin wax caddeena oo maantay dhihi kara sida cali ayaa dilkan geystay, ayadoo lahaynin markhaati dhihi kara falkan soo geysanayaan markay iguna markhaati furi kara iyo kuna dhaaro kara. markhaati walba la keeno wuxuu ka tarjumayay waxaan arkay gabadhii Sana ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib. mudan garsoore waxaan arkaa waxaa liigu tilmaamaya in si wax kama jiraan ahayn. hadda tusbaxaan awto waa 100 xabo, haddaan iraato 70 xabo waaye, wax suurtagal miya? waa may. waxaan kaloo arkaa maxay ahayd maantay dhibka dhacay waxaa liigu eedeeyey inaan dilay xaaskayga. tusaalahan haddaan ku siiyo mudan guddoomiye, maantay gurigayga hortiisa ama qofaa gurigiisa hortiisa god ka shiday, qashinuu ku shubay, wuu gubay. qofaa wadada soo maray dabkiiuu ku dhacay, qofkaas isaga maa dilay? waa maysoma. waxaan arkaa mudan guddoomiye kiiskayga in la siyaasadeeyey oo maxay ahayd qofba qaab gooniya oo u qaada dhigayo. waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed inay ilaahay ka baqaan horta marka u horeyso. qof gooni ah oo god la galayo ma jiro, qof walba qabrigiisa ayaa sugaya. maantay haddii la helo markhaati dhahaayo sida cali anaa arkayay markuu falkan geysanayo, ama CC camera laga helo, ama maxay ahayd qaab kasta, waxaan ogolahay xataa inaan beri sii noolaan oo maanta shareecada islaamka lagu fuliyo, laakiin dembi aanan lahayn mudan garsoore yaa dusha laiga saarin. maantay inaan mudan garsoore eedaysano noqdo, xaaskayga laigu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu ilaahay qoray 6 arkaanuna iimaanka ayaa ka mid ah, wabilqadri khayri wa shari, qofka islaamka inuu aamino. aniga waa aaminsanahay qadarta khayr iyo shar batay tahay. adigana mudan garsoore ilaaha kuu nimcadan ku siiyey maanta inaad garteeda noqdo oo maxay xaakimkayga noqoto, waana kaaga mahadcelinayaa. ilaahayse adina waxaan kaa codsanayaa mudan garsoore si xeel dheer maxay ahayd shareecada islaamka waafaqsan inaad igu xukunto, aad igu xukumin sidii maxkamaddii hore ayada markhaati liiga hin, caddeyn liiga hin, qiraar liiga hinin, si mala ah. qofka ibni aadanka maantay qaabay wax u dhaceen, adigana qaab kale u fikiri kartaa, qof walbana waa sidaas. marka qof ibni aadan ah oo naf leh ilaahay karaameeyey maxay ahayd mala in lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigayo.